Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa waxtarka caafimaad oo ay leedahay karootada. Ka hor intaynan mowduuca bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Karootada waxa ay ka mid tahay cuntooyinka ugu muhiimsan uguna caafimaadka badan. Waxaa ku jira curiyayaal aad u sareeya waxtarkooda. Sidoo kale waxaa ku jira maadooyin aad u muhiimsan uguna muhiimsan jirka bini'aadamka sida fitamiinada, macdanta iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah, waxaana ugu muhiimsan 1. Karootada iyo aragga. Waxay xoojisaa aragga, waxayna wanaajisaa aragga. Sidoo kale waxaa ku jira maado la dhaho vitamin A, kaas oo u wanaagsan isha ama indhaha. 2. Karootada iyo beerka. Karootada waxay ka shaqaysaa inay beerka ka ilaaliso waxyaabaha sunta ah oo ka dhasha maadooyinka kiimikaalka ah, kuwaas oo inta badan laga helo deegaanka. Waxayna kaalin weyn ka qaadataa inay jirka ka nadiifiso waxyaabaha sunta ah oo laga helo deegaanka. Ka hortag. Karootada waxay xoojisaa inuu jirka iska difaaco ama uu ka hortago cudurrada. Baaritaano la sameeyay waxay muujinayaan in karootada laga dhaxelay maado la dhaho albuli stilin, taas oo u diida unugyada jirka inuu ka dhasho kansar. 4. Karootada waxay caafimaad u tahay afka, waxayna afka ka ilaalisaa inuu ciridka u jirado. Sidoo kale waxay ka qayb qaadataa nadiifinta ilkaha. 5. Karootada waxay caafimaad u tahay maqaarka jirka, iyadoo laga eegayo maadooyin fitamiin ah kuwaa oo ku jira karootada, kuwaas oo aashitada iska difaaca. Waxayna maqaarka jirka ka caawiyaan inuu iska difaaco falaaraha qorraxda.